والله كنت له فرهود وبين حتى ما تلفي قلبي واقف شبه تلقى أمه والله قدرات وقبل دكرته وشهوة فوق إلى أساسي خربان waxaan inta dowreynay dawlad galmudug qorqor fiqi wasiirka amniga ayaa ka wardowray waxa aan ka haynayna ma jiraan ilaa inta ciidanka xaquuqda ka haya waxa si xiraan doonta wadada isku xiriirsan beledweyne iyo gaalkacyo إذا كنت له والله كنت له فرهود وبين حتى ما تلفي قلبي واقف شبه تلقى أمه والله قدرات وقبل دكرته وشهوة فوق إلى أساسي خربان ciidankan waxa la xareeyay oo dawladda galmudug xareysay 2020kii bishii shanaad 15keedii waxay ku xareysay gaaska dhaanka roone hadda iyo xilligaas wax xaquuq ah ay qaateen iyo waxay heleen sidii dawladda galmudug u xareysay wasiirka amniga madaxweynaha xildhibaanadeeda wasaaradaha kala duwan siday u xareeyeen oo halka ugu xareeyeen oo ay u tababaranayeen wax xaquuq ah ay qaateen iyo cid siisay iyo wax tixgelina iyo caafimaad laga daryeelay midna ma jiraan markii sidaas dhacday oo waqtiga badan ay baahnaayeen oo dul qaateen oo dhibaatooyinka badan iyo mushkilada badan ay soo mareen ayay waxay xireen 2021 bishii koowaad 14keedii bay waxay xireen wadada isku xiriirisa gaalkacyo iyo beledweyne ilaa iyo hadda wadadu waa xiranta sidaas ayaa wax u dhaceen waxaan u sheegaynaa dawladda galmudug iyo cidii kale oo galmudug dan kale ama danaynaysa ama dan ugu jirto inay ciidankaas xuquuqdoodii u fasaxaan iyo waxay tabanayaan caafimaadka dawada iyo xuquuqda ay leeyihiin 8 bilood ayaa ciidankaas waxay yihiin wax xuquuq la'aan waxaan inta dowreynay dawlad galmudug qorqor fiqi wasiirka amniga ayaa ka wardowray waxa aan ka haynayna ma jiraan ilaa inta ciidanka xaquuqda ka haya waxa si xiraan doonta wadada isku xiriirsan beledweyne iyo gaalkacyo